gaar ayay tahay maantay inaan ka soo qayb galno kulankan farsamo oo lagu la fugurayo hanaanka iyo tubta Soomaaliya u marayso ku biirista heshiiska caalamiga ah ee isticmaalka iyo ilaalinta biyaha iyo harooyinka xuduudaha ka goosha sidii hadda wasiirku noo fasirayay biyuhu muhiimad weyn ayay noo leeyihiin aayad quraana ayaa waxay leedahay وهو الذي خلق السماوات والأرض إلهي بكال ليسا وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء إلهي وكان أبوري سماواتك يدلك لحم الموت قدهود عرشي سناء بيها كفري وحير هذا علماء سماواتك يدلك إنتان لبيرين كهر وحي وهريي الله بيره بيها وهريي وعرشك بيها يهودا لنا marka biyuhu muhiimadaas uu leeyahay waayo noole ma banoolaan karaba biyo la'aantiis caqabada adag marka waxaan bogaadinayaa dadaalka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee hogaamiyo saaxiibkeen wasiir bidaan kaasoo xoojinaya maareynta kheyraadka biyaha ee xadka ka gudba iyadoo la xoojinayo hanaanka maamulka iyo maareynta biyaha caqabada adag ayaa ku gadaaman biyaha la wadaago khilaaf badan ayaa hareeyay inta badan biyaha ka tallaaba xadadka taasoo saameynaysa xiriirada dalalka waad ogtihiin tusaale cadna loo soo qaadan karo nabadgelyada gobollada iyo iskaashiga caalamiga haddii biyaha la taataabto noloshii baa la taabtay nabadgelya ma jirayso khilaaf iyo siraac iyo loolan iyo waxaa imaanaya mararka qaarkood isku bedeli kara gacanka hadal isbeddelka siyaasadda gobollada xasiloonida iyo danaha isku dhafan ee dowladaha gobolka geeska Afrika ayaa saameyn iyo qaameynba ku leh hanaanka maamul maareynta iyo wadaagga kheyraadka biyaha iyo harooyinka xuduudaha ka gudba Soomaaliya waxaa jiritaankeeda badqabka bulshadeeda iyo horumarkeedaba saldhig u ah helitaanka biyo nadiif ah oo ku filan isla markaana la horumarinayo kaabayaasha biyaha si xal waara looga gudbo aafadaha ama musiibooyinka abaaraha biyo yarida iyo fatahada wasiirka ayaa runtii tilmaamay biyaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle oo Soomaaliya runtii lifeline u ah ayaa ka yimaada oogada sare ee waddanka dariska nahay Ethiopia muhiimad gaarana ayayna dalkeena ugu fadhiyaan kororka bulshada iyo horumarinta biyaha isticmaalka wadamada dariska ayaa saameyn guracan iyo reeb daran ku yeeshay xaddiga qulqulka biyaha ee dalkeena marka labadaas wabi waad aragteen ayaamahan dambe wabiga Shabeelle wasiirku sheegay in intiisa badan wax soo saarkeena uu ku salaysan yahay waayadan dambe uu guri jiray biyaha marmarka qaarkood ciyaalka yararkaayo xaafadaha iyo degmooyinka degan tuulooyinka ku taadsan ayaa banooni isaga ciyaara awal de waqtiyo badan ayaa u dhaxayn jiray laakiin hadda si sanad la ayaa loo arkaa ayagoo go'aya xalka inaga kaliya nagama go'o waxaa muhiim ah is-afgarad gobol wada xaajood ku dhisan mabaadiic caalami ah oo ay hagayso xeerarka iyo heshiisyada caalamiga nasiib darro Ethiopia ma aanay muujin in ay danaynayso ku biirista heshiiska caalamiga ah ee biyaha kaasoo muhiimad gaar ah u leh wada xaajoodyada biyaha ee wadamada kheyraadka biyaha wadaaga martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaa maragma doonto ah in uu kordhayo ismaandhaafka iyo muranada salka ku haya kheyraadka biyaha ee la wadaago waxayna meesha ka maqan hanaan ay heshiis ku yihiin wadamada qaarkood iyo kuwa geeska
waana sababta aanu ugu biirayno heshiiskan si loo helo hannaan haga ka faa'iidaysiga khayraadka biyaha ee xadka ka tilaaba. mudnaan gaar ayay u leedahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay hormuud u noqdaan ku biirista heshiiska caalamiga ah kaasoo dhabaha u xaaraya in dalkeenu noqdo mid u hoggaansan heshiisyada caalamiga ah isla markaana diyaar u ah inuu dabaqo mabaadi'da caalamiga ah ee biyaha la wadaago ee xadka ka gudba. heshiiskan wuxuu sidoo kale baritaari doonaa in la helo dhaqaale iyo taageero farsamo si loogu horumariyo biyaha la wadaago ee xadka ka gudba kaasoo si wada jira loogu fulin karo mashaariicda horumarineed kaabayaasha biyaha. martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin, gabagabadii hadalkayga fursaddan muhiimka ah waxaan rabnaa inaan hortiina kaga dhawaaqo in wasaaradda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto hannaanka hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee khayraadka biyaha la wadaago ee xadka ka gudba. 2 siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya waxaa saldhig u ah badqabka bulshadeena, xoojinta kaalinta dalka ee gobolka iyo adduunka, iyo hirgelinta xiriiro ku dhisan waxqabad iyo iskaashi. sidoo kale arrimaha khayraadka biyaha ayaa noo leh muhiimad gaar ah taasoo aan diyaar u nahay inaan ilaalsano danaheenna iyo danaha gobolka taasoo ku dhisan mabaadi'da cadaaladda, horumarka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dalkeena. waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay hannaanka Soomaaliya ugu biirayso heshiiskan, gaar ahaan hay-adaha qaramada midoobay, bahwadaagta iyo saaxiibada Soomaaliya.